بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ma jeceshahay inaad abuurato fursad shaqo ma jeceshahay inaad bilowdo ganacsi adigoo kuu gaar ah ma hamisaa inaad dakhli badan aad samayso hadday jawaabtaadu haa tahay muuqaalkan si gaar ah ayuu adigu kuugu socdaa ganacsiga waa mid ka mid ah dariiqyada ugu muhiimsan ee dhalinyaradu kaga qayb qaadan karaan horumarka bulshada sidoo kalena ay u abuuran karaan fursado shaqo oo ay dakhli ka sameeyaan xilligan aan joogno tiknoolajiyada iyo fursadaha cusub ee suuqa ayaa dhalinyarada u sahla inay si fudud u bilaabi karaan ganacsi iyaga u gaar ah dhalinyarta maanta waxay leeyihiin maskax furan iyo awood ay kaga faa'iideysan karaan suuqyada casriga ee maanta sidaa darteed muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ku saabsan sidaad ku samaysan lahayd ganacsi adiga kuu gaar ah insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan qodobka koowaad yeelo astaamo ama caadooyin hal-abuur waxaa jira astaamo u gaar ah dhalinta hal-abuurka leh waxaana ka mid ah maskax wanaagsan iyo dareen curin qaar ka mid ah dhalinyarta waxay leeyihiin awood maskaxeed oo ay ugu fikri karaan kuna curin karaan fikrado cusub oo ganacsi ah oo aan hore loo tijaabin waxay la imaadaan hal-abuur ganacsi hal-abuurka ganacsi wuxuu ka bilowdaa in la helo mushkilad ama dhibaato jirta kadibna dhibaatadaas in loo helo xal cusub oo degdeg ah si dhibaatadaas meesha loogu saaro ama in la abuuro adeegyo ka maqan bulshada oo ay aad ugu baahan yihiin tusaale adigoo la kaashanayo qaar ka mid ah asxaabtaada waxaad si fiican u daraasaysaan ama u baartaan xaafadda aad degan tihiin dhibaato ka jirta oo xal u baahan ama adeeg xaafaddaas aad loogu baahan yahay oo aan weli soo gaarin waxaadna isku daydeen dhibaatadaas inaad xal u keentaan ama adeegaas loo baahan yahay inaad keentaan adinkoo ku beesgaraynayo awooddiina dhaqaale waxaan idinla wadaagi doonaa tusaalooyin dhab ah oo aan aniga hore u soo sameeyey sanadka markuu ahaa 2014 anagoo koox dhalinyaro ah waxaan ahayn kuwa jaamacadda soo dhameeyey wax shaqo aanan haysan maalin anagoo meel wada fadhina mid ka mid ah asxaabta ayaa wuxuu soo jeediyey fikrada inaan bilowno mashruuc qashin qaadista xaafadda ah maalmahaas waxaa magaalada kusoo badanaya mashruucaas laakiin xaafadda aan degannahay weli mausan soo gaarin waxaan bilownay inaan falanqayno fikradaas mid asxaabta ka mid ayaa wuxuu dhahay intaan hawshaas u gudagelin marka hore xaafadda aan xog ka soo ururino hadday serfiskaan u baahan yihiin iyo haddaysan u baahneen waxaan bilownay inaan iskala qabino oo aan xaafadda galno si aan xog ugu soo ururino ugu dambeyn waxaanu soo baxday in serfiskaas dad badan u baahan yihiin sidii ayaan ku bilownay wuxuuna noo noqday mashruuc guulaystay sidoo kale 2017 waxaan sameynay mashruuc kale mashruucana wuxuu ahaa xanaanad ciyaalka yaryar 3 jir ilaa iyo 6 jir intaan mashruuca bilaabeen waxaan daraasaynay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin 1 xaafadda aan rabno inaan xanaanada ka furno inay tahay xaafad u baahan in xanaanada laga furo macnaha inay jirto baahi xanaanada carruurta 2 waalidka carruurta dhalay inay soo dhaweynayaan fikradda ah inay carruurtooda xanaanad u dhigtaan 3 waalidka carruurta dhalay waxay u baahan yihiin in carruurtooda bartaan 4 dadka xaafadda degan inay bixin karaan lacagaha lagu dhigto xanaanada markaan soo ururino xogo badan waxaana soo baxday in waalidka dhalay carruurta ay aad ugu baahan yihiin carruurtooda inay xanaanad u dhigtaan sidoo kale inay diiradda saarayaan in carruurtooda marka hore qur-aanka kariimka si fiican loogu baro weliba tajwiid kadibna in mawaado kale laga dhiso sidoo kale lacagta xanaanada lagu dhigto inay noqoto mid macquul ah markaan helnay intaanu xoga waxaan bilownay inaan aasaasno xanaanadii waxaana u bixinay xanaanada al-ixsaan ilaa iyo maantana way shaqaysaa alxamdulilah adinkana waad samayn kartaan mashruuc idin gaar ah haddii aad isgarabsataan dhalinyartaad asxaabta tihiin waan dareemi karaa waxaa jirto hal su'aal oo maskaxdiina ku wareeganayso oo aad isweydiinaysaan taasoo ah lacagahan mashruuc ku bixinayno xaggeen ka keenaynaa insha Allah aniga idiin sheegi doono ila socdo ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan steepkana asaaska mashruuca markaad maraysaan waxaa muhiim ah inaad yeelataan dhiiranaan iyo kalsooni sababtoo ah ganacsi walba wuxuu leeyahay caqabado iyo guuldarooyin ku meel gaar ah marka waa inaad la timaadaan karti dulqaad iyo dhiiranaan aad ugu gudbi kartaan guuldarooyinkaas yaryar intaas waxaan ugu bixaynaa qodobka koowaad qodobka labaad talaabooyinka lagama maarmaanka u ah ganacsiga guulaysta waxaa jira talaabooyin muhiim ah oo lagaa rabo inaad raacdo si ganacsiga uu noqdo ganacsi guulaysta 1 la imow fikrad ganacsi cusub waxaa muhiim ah in dhalinyarada ay yeeshaan fikrad ganacsi cusub fikrada ganacsi wayna noqotaa mid ay dadka u baahan yihiin beddelka ay noqon lahayd mid aan baahi badan loo qabin oo ay dadka hore u haysteen sida inaad dukaan raashin lagu gado aad ka furato
xaafad ama suuq dukaaman badan oo raashina ka furan. haddii aad soo celiso waxyaabaha dadka hore weysteen waxay u badan tahay inaad khasaaro dhexda ka fadhiisan doonto. fikradda ganacsi waa inay noqotaa mid xalisa dhibaato ka jirta suuqa ama waa inay dabooshaa baahi suuqa ka jirto. 2. baro suuqa. ka hor intaadan bilaabin ganacsi walba waxaa wanaagsan inaad ogaato waxa suuqa ka maqan oo aadka loogu baahan yahay. sidoo kale inaad fahanto macaamiisha ganacsiga ee diiradda saarayaan. fahamka baahida suuqa iyo waxa ay macaamiishu rabaan waa furaha guusha ee ganacsi walba. marka adigoon suuqa fahmin wax ganacsi ah ha biloobin haddii aad rabto ganacsiga inuu ku noqdo ganacsi guulaysta. 3. samayso qorshe ganacsi. ganacsi walba guulaysta wuxuu leeyahay qorshe wanaagsan oo qoran. qorshahaasi waa inuu qeexaa hadafka aad ganacsiga ka leedahay. waa inaad yeelataa miisaaniyad ganacsi iyo istiraatiijiyad aad suuqa ku soo gelayso. 4. maalgelinta ganacsigaaga. haddee waxaan ugu taagnad su'aala xaggeen ka heli karnaa kharashaadkan ku bilowdayno mashaariicdeena. si aad ganacsi u samayso waxaa lama huraan ah inaad hesho lacag aad ganacsigaaga ku bilowdo. markaad ganacsi bilowayso waxaa wanaagsan inaad ku bilowdo lacago yar oo aad adiga leedahay. laakiin haddii wax lacagaadan haysan keliya aad haysato fikrad wanaagsan oo aad isleedahay fikraddan way ku guulaysan doontaa, waxaad samayn kartaa inaad bangiyada aad la kaashato. waxaa jira bangiyo badan oo kuu maalgelinaya fikradda aad rabto in lagu maalgeliyo, kadibna lacagtaas si tartiib tartiib ah aad isaga gudayso. laakiin inta fikradda aad rabto ama mashruuca aad rabto lagu maalgelin, marka hore suuqa si fiican u aqri, si fiican u soo daraaseey. waxaadna isweydiisaa su'aalaha ah mashruuca aad rabto inaad bilowdo baahi badan dadka ma u qabaan. intee in leeg ayay macaamiisha mashruucan u baahan yihiin? mashruucan dhibaato noocee ayuu macaamiisha u xalin karaa? suuqaad rabto inaad mashruucan ka bilowdo ma yahay suuq ku habboon mashruucan? haddii su'aalahan oo dhan jawaab sax aad u hesho mashruucaaga waad bilaabi kartaa. waa fujintan rabbi subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ka ahaatay. 5. isticmaalka tiknoolajiyada cusub iyo suuqgeynta casriga ah. baraha bulshada waa aalad muhiim ah oo lagu horumarin karo ganacsi walba. isticmaalka aaladaha sida Facebooka, Instagramka, TikToka iyo YouTubeka waxay kuu suurtagelinayaan inaad si fudud aad ku hesho macaamiil cusub iyo inay badeecada daqiiqad gudaheeda ku gaarto macaamiil aad u badan. marka waa muhiim inaad ganacsigaaga u isticmaasho baraha bulshada si aad macaamiil badan aad u hesho. qodobka 3. caqabadaha ku soo waajahaya sida lagu xalin karo. ganacsi walbo bilow ah ama cusub wuxuu leeyahay caqabado iyo guuldarooyin. guuldarooyinkaasi aysan ku niyo jebin ee waxaad ka barataa casharo, sababtoo ah marka hore aad bilaabayso ganacsi ma lihid wax macaamiil ah. sidaa darteeda maalmaha ugu horeysa ama bilaha ugu horeeya ee ganacsigaaga waa suurtagal inaadan faa'iido badan aadan samayn. arrintaasna waa wax iska dabiici ah. si aad macaamiil u kasbato waa inaad la timaadaa dulqaad iyo dadaal fara badan. mar haddii serviceka aad bixinayso ama productiga aad gadayso tayadiisa la tijaabiyo oo macaamiil aad yeelato, waxaad si toos ugu soo dhici doontaa waddada guusha insha allahu tacaala. qodobka 4. talooyin muhiim u ah shakhsi walbo ganacsiga ku cusub. talada 1. ku bilow lacago yaryar. ganacsiga ku bilow si tartiib tartiib ah, kadibna u kordhi si waafaqsan awooddaada dhaqaale. marka ugu horeysa aad ganacsi bilaabayso daruuri ma ahan inaad lacago fara badan aad ku bilowdo. waxaa suurtagal ah inay ku soo gaarto khasaaro aadan ka kabsan karin. marka si degan ku bilow ganacsigaaga. talada 2. la tasho dadka khabiirka ku ah suuqa. markaad ganacsi bilaabayso waxaa muhiim ah inaad la tashi aad la samayso dadka khabiirka ku ah waxaad rabto inaad iibiso si aad ugu faa'iidaysato khibradooda aadna isaga ilaaliso qaladaadka iyo guuldarooyinka badan. talada 3. ku xirnow horumarka tiknoolajiyadda. sanadihii hore ganacsiyada waxaa xayeysiin loogu samayn jiray idaacadaha iyo tviyada si loo horumariyo macaamiil badan lagu helo, waxaana lagu bixin jiray lacago fara badan. laakiin casrigan cusub wax walba way isbedeleen. si aad u horumariso ganacsigaaga waxaad u baahan tahay inaad la socoto tiknoolajiyada cusub iyo social mediaha. tusaale productiga ama alaabtaad gadayso inaad soo geliso social media sida Facebooka, Instagramka, TikToka si aad u hesho macaamiil fara badan oo alaabtaas ka gata. gabagabadii mawduuceena dhalinyarta maanta waa inay si weyn ugu faa'iidaystaan fursadaha jira ee ganacsi iyagoo adeegsanaya xirfadaha ay leeyihiin iyo awoodda tiknoolajiyadda. ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay dulqaad, adkaysi, karti, dadaal badan iyo in wax laga barto guuldarooyin kala duwan ee noloshaada ganacsi ku soo maray. Assalaamu calaykum.